ku soo dhowaada barnaamijkeenna gungaar oo aan ku dul istaagi doonno macallinkii dilaaga ahaa iyo shabakadiisu ay burburiyeen booliska gobolka banaadir kuwaasoo qaarkoodna la qabtay oo ay cadaalad mareen qaarna la hayo xogtooda oo lagu raad joogo maxamed xaaji oo magacyadiisa afgarashada ay ka mid yihiin daadir xaaji ilka xase cadnaan xudayfe iyo cadaawe waxa uu ahaa howlwadeenkii ugu weynaa al-shabaab ee gobolka banaadir waxa uu ku magacawnaa madaxa dilalka qorshaysan ee gobolka banaadir horta asalkii xudayfa aan ku group fara badan oo aan la soo shaqeeyay markii la badbedelayna magacadan aska mid group walba lagu soo bedel magac cusub waay cadaaba la baxay rakacasan la baxay maxamed waxa uu kaga duwan yahay dhalinyaradii hore aan ku soo qaadanay barnaamijyadeena gungaar waa macallin jaamacadeed oo haysta shahaadada heerka labaad ee jaamacadda mana ahan wiil yar oo aan wax baran oo la marin habaabiyey haddaba inta aanan u gelin sheekooyinka maxamed xaaji ilka xase ee la xiriirta dhagridda bal aan marka hore eegno isagu waa kuma lafahantiisa ayaa noo sharaxaya maxamed xaaji heerarkiisa waxbarasho sidii kala dugsigii hore markaas ka soo baxay markaas oo idin kaga sheegaysan markaas oo culumta diinta aan ku soo baxay oo taxadka ilaahayeen xaq diin ahaan markii la kutubada soo akhristay oo dhowr ay u badan yihiin rasaalixiinka iyo bilowul maraamka iyo tajriis waxaan kutubada tajwiidka iyo kutubada kala jihaadiga wax badan ka soo akhriyay سواء ماشي اللي يقدر تروح حافظ عوالو ميلك مرة دم نقع حافظ القرآن حق دين تسوى مركب ديك سوا صدق وحاسو دمي سنة كذاكم يسديد السوق سديد إسلا أكاديمي كيك وحاسو بدي بقاعد مركب كبلاو ديك سوا سرع حاسو دمي 2011 لابد يسديد يو كوي تبانك إلى بتوقع حيسا أنا أخوتي الجامعة عن سوق لي لو طبعا كلا يلحي طبعا كان لقيناي شهادة بي عن خاطئ كدي بوحنق لي مع إنجليش كله برتو مجال كعزبة فرونتير لده مش حنك خاطئ شهادة دبلوم إنجليش أسستنت أنا إيه خاطئ مركي عن كسر أسستنت أنا سلاقي وحن عشان ناخذ مع هذا معنى إنجليش أكاديميك إنجليش عندنا مركا دولة كلا هذا جامعة مقدشة بلاوي ماستر environmental study halkan waa maxadka frontier oo lagu barto luqadda ingiriiska waxaana uu ka ahaa macallin ingiriis maxamed xaaji ilka xase isagoo fasalkan ardayda kula wadaagi jiray duruus of preparation one of the international exams of the world. It's a center which provides and prepares IELTS preparation. I think in general East Africa we have only few countries that operates and prepares the IELTS and the TOEFL. Frontier became the very first college started preparing the method of macallinka dilaaga noqday maxamed xaaji waxa uu horjoogo ahaa shabakadii ugu halisaneyd al-shabaab ee muqdisho ka geysata falal argagixisanimo waxaana sida ku xashaxda booliska gobolka banaadir madax u ahaa qaybta dilalka qorshaysan ee shabakadan maxamed xaaji iyadoo uu ku-xigeen u ahaa sharmaake cumar axmed oo loo yaqaan ugaaska ama ganay kaasoo ay hayeen xogtiisa iyo sawiradiisa booliska gobolka banaadir ayna ku raad joogaan axmed faarax iidle oo magacyadiisa afgarashada ay yihiin shuuriye madoobe nuunow iyo ramadaan cabdiraxiin mursal oo la baxay saalax waxay ka tirsan yihiin shabakadan dilalka qorshaysan qaybta istikhbaaraadka ama sahanka waxay ahayd shabakad kale oo ka tirsan kooxda ilka xase waxaana ku-xigeen u ahaa dhinacaasi saalim siciid oo ay gacanyarayaal u ahaayeen haashin carab faadimo korneylo maryan oo ah xaaska saalim cabdiraxmaan sheeba iyo cabdinaasir axmed oo ah maqanayaal ay boolisku ku raad joogaan maxamed xaaji ilka xase waxa uu ka mid yahay dhalinyaro dhowr ah oo al-shabaab ah oo aan horay u soo waraysay kuwaas oo fikirka takfiirinta iyo xagjirka lagu soo baray dugsigiisa qur-aanka taasoo ah halka uu kala jaan qaaday al-shabaab horta fikirkan wuxuu ugu dhashay fikir oo anigoo weyn ah
waa ka yaraa macna marka gaar ahaan tusaale ahaan dugsiga hoose dhexe markaan dhiganahay dugsiga quraanka dhexe dugsiga quraanka aan dhiganahay wuxuu ahaa dugsi itixaad ay leeyihiin xiligaas dugsiga aqwaanka halii jir gobolka dhan waa looga imaan jiray marka la markaas ahaan xiligaas suufiya ku badneed magaalka iyo gobolka laakiin magaaladaasi waxa loo imaan jiray dugsiga la aqwaanka oo caan waa dadka bulmar dugsiga aqwaanka dadadi ameel aan hada ugu sheegi karo marka dugsiga waxa macallimiin noo ahaa banaman oo xiligaasi oo itixaad ka dagaalam jiray oo nin la dhaho macallin Suleymaan nin la dhihi jiray oo howlgaladii calal ka dhici jiray Itoobiya ku baxay maxamed xaaji ilka xasan waxa uu shaqadiisii ugu horeysay al-shabaabnimo ka soo bilaabay magaalo xeebeedka marka oo halkii uu ku soo dhigtay dugsigiisa sare waxaana uu ku doodayaa in dugsiga sare uu soo dhigan jiray ay saameyn ku lahayd kooxda al-shabaab kuna soo booqan jireen horjoogayaal ka tirsan kooxda xiligaas dugsiga waxaa noogu imaan jiray waa xili hore sheekh Fuad waa nin iska yaraa xiligaas xoogaa da'ahana nin weyn u egyahay iyo aadan xaashi iyo nin la dhaho maxaa la jiray Cabdullaahi Salaad iyo Abu Zubair meesha ugu waajir kale ma ka jirin xiligaas laakiin ilka xasan waxa uu marka uga shaqayn jiray habjaajuusnimo oo isaga koox kale ay ka dhex shaqayn jireen inay macluumaad ka aruuriyaan dadka kooxda ka tirsan iyo dadka ku dhex nool deegaanada ay ka taliyaan waxayna ka warbixin jireen wax kasta oo kooxda dhexdeeda khatar ku ah balse markii ay dawladdu la wareegtay magaalada Marko waxay isla iyagii laga dhigay koox qaabilsan qalqalgelinta amniga magaalada Marko dawladdu marka meesha soo tashatay markii isoo galeen oo markii kor laga soo wareegtay calash ilaa iyo markii magaalada marka la qabsadayna ragii daaqiliga ahaa ayaa waxa la yiri qaarijiga isku bedelay dawladda imaaday daaqil uu ku soo baxay kan qaarijiga ana taasoo qaarij ayaga howlgala ilaa dadka ayaa yaqaan oo intaan ku soo koray mugti kii isbedelaayo kii jaasus ah askarti dad cusub hadii loo keeno yaani dib way naqeen in loo tilmaamo laakiin anaga wada naqaana ma laga shakisan hadana sidii waxa la jiray aan ku bilaabay hawshii ugu horeysay kooxdan wiilka xasan ka mid ahaa ay Marko ka qabtaan waxa ka mid ahayd dilkii wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Asad Xaajo kaasoo ka shaqeynaya Xaajo Bookshop oo ay qoyskoodu lahaayeen wuxuuna sheegay maxamed ilka xasan in dilkaasi uu geysay nin saaxiibkiisa isna uu ka fogaaday in la aqoonsado maadaama ay Asad saaxiib ahaayeen Asad aan shakhsiyan aqaanu ahaa yani in fiican oo ahaa dawladda u shaqeynayeen waxba muusan ahayn meesha station road ku joogay footadaas uu iska joogay family ahaana yani waa dad aad loo yaqaan footada iyo sawirada dadkaas xiligaas gobolka dhan baa laga yaqaan sawirka dugsiga sare shahaadada xataa isaga yaqaan banaankan joogay oo meesha isaga station roadtiisa munishibi meel la ku tala sarta dheereed oo muxaadarooyin wax lagu qaban jiray anoo xagga taagan aan waxa arkaa anug oo marka dambe dhiman doono oo budbooda la dheey doono amesh taaganay Asad telefoon uu qabto wuxuu dhahay waraan imanka wada carreen gabigooda wallahi fulay waay shaabti iyo wixii iyo kan budbooda wax muusan hubsan ninka ku bilaabay abaar marka xabad ina anaga soo wada orod meesha ka imaanay ninkii jiifa aragnay inankan bisko la xariisana bas ninkii soo wadnay waxa dhacay saan uu dhahay ninka uu dhahay telefoonkiisa ku hadlay telefoonkiisa waa kaasa anoo meesha taagan uu dhahay nimanka soo galeen wuxuu gudbinay أسد مركز هو نولا أنا وأركي يعني بارلايس هو نولا يعني هان هو صوت تجينا كلا كم مركز هو نولا أسد مركز ده كم سكان يقانا قاركود سكر مصاحبه ونا فوتد يوحي مركز ما بقدر سمين بعنا هذا هو سيسان فرق يسوقلين بنا كان كيس تاجي maxamed xaaji ilka xasan waxa ka mid ah waxyaabaha xajiibka leh ee uu sheegay in markii magaalada Marko ay dawladdu la wareegtay uu la noolaa Jeneraal Ismaaciil oo xaruurtiisa uu saaxiib la ahaa iskuulkana wada dhiganayeen wuxuuna barnaamijka gungaar u sheegay in maalinkiina uu gabaad u ahaa guriga jananka habeenkiina uu isla guriga bambooyin ku tuuri jiray si uu u dilo jananka uu gurigiisa ku noolaa ee uu la tacaamulay sida xaruurtiisa oo kale آخركينا وحاو مركا كدلي وهي وجنرال إسماعيل أحمد عثمان مكيالي كدلي سيدي دي اللباتنكي بشي تمنا سنة كي لبادي يكون يلحي طبانكا دقمدا وابري مقالة مقدشو نين وحال لي جري إسماعيل جاشان اللي حقها وعن وايس شنامدا عن كامركا كتار شيخ إسماعيل مركيالو دمغش نقل هوا جنون لكن سياد بروها
markii dawladda ay dadkii xagga markii shabaabka ay qabsadeen asal oo shaleemada laga burburiyo laga bursado ahaa meesha intuu imaaday dawladda oo soo hubeeyay dib loo sii janay waxa la jiray darajadiisa markuu soo weeraray si kala daan u dhigay marka aniga iyo wiilashiisa saaxiib waa ahayn shaleemada Ismaaciil guriga ku dhiganaa buu deganaa baan weligeed magaalada markuu soo galay gurigiina waa deganaa ninkaana janan waay adeer iska dhaha marka mugti ilmihiisna saaxiibana ninkii aameesh dadka qabtay ku mid ah marka Abdulqaadir Siidi isagii gurigaas qabtay ninkaasna waxa waay dadka isaga iyo ciidanka iyo dadka si gaar ah u beegsan ka mid ah isaga dhowr mar oo aan shakhsiyadii iga badbaaday oo aan gurigiis bam ku tuuray ciyaalkiisa saaxiib waa ahayn hadda marka dambe intaan ku helay ninkii waxaas dhan way soo dhamaadeen waa la soo weynaaday jaamacada la dhameeyay darada oo Muqdisho kan 2 sano ka hor iyo hal sano ka hor inay tahay jecel Liberian ku helay Ismaaciil asoo Interpol shaqeynaa booliska muddo 5 sano 6 sano ka soo wareegtay ninkii dadkii meesha waxa soo baabaa inta la sleemaa moogta ninkii intuu imaaday isagoo sarkaal la sii dalacsiyay oo yani Interpol u shaqeeyay wiilashiisa saaxiib waa ahayn anaga marka si hadii loo dhaho xoogaa waxa nagu jira adeernimo iyo wixii qaraabo maniin laakiin adeer iska dheena laakiin haddana hooshii ana bariis adeer iyo waxa inaan ana ugu dambeyn hada ninkii saaxiibkayga Hashimi afar sameeynankii iyo ani shuri dilka Generaal Ismaaciil kuma uusan ahayn Maxamed Xaaji kaligiis waxa ka qayb galay Haashim oo kamid ahaa shabakada Ilka Case waa kan Haashim oo isagana ka sheekeynaya qaybtii uu ku lahaa dilkaasi wuxuu fadhiyay maqaayad ku taalo isgooska waa bari isgooska shaqaalaha wuxuu fadhiyay meesha laga soo doorahay haddan ciidana markaadna oo seminaarka maadal sheey Talyaani ma sarkaalo ahaa marka xaafadu soo galay xaafadiyaan kala soo dawgalnay markii taasan sidoo kale Maxamed waxa uu sheegtay inuu gacantiisa ku dilay Xaaji Baano oo kamid ah waxgaradka magaalada Marko xilli uu masjid ka soo baxayay waxaana isaga dhagar qabayaasha la socday banayseen dilka qof muumin ah oo ka soo baxay masjidka Eebe يعني نكان إسقى بانو حاج بانو وأنا أرت لويد أنا لويد خان مركي إسقى لقى صلاة دبدون نمديس يدرغ نمديس عاد كواها ده مركم مساجد وكصابة مساجد يرى الرحمة الله وكل حيارس الرحمة ده وين معها وجر كل حيار كل حجر درغبة كل حيار شرفة ير ودرغبة لا كتبتان كيو كصابة حي بنان كان كوين مرك لكن والصو كونفرم قريه إنك على عليه markii dambe waxay kooxda al-shabaab u soo bedeleen Maxamed Xaaji inuu ka shaqeeyo magaalada Muqdisho oo uu sheegay in waqtigaasi uu haysan jiray kooxda waxdishan inuu magaciisa ku sheegay Cabdiraxmaan oo ay ku xigeenna u hayeen Cabdi Majiid iyo Cabdi Muuse kuwaasoo midna la qabtay midna la dilay sanadkii 2012 Maxamed Xaaji markii ugu horeysay uu shaqo bilaabay waxay isku koox noqdeen Galadila iyo Mooryaanka oo labadaba loogu soo xulay inay Muqdisho kala yaqaanaan waxaana hubhayso u ahayd Felis Maco oo xukunsana ku jirta xabsiga dhexe ee Muqdisho أنا شخصيا قالت عبد نمكن أن كسر جاري وحير أنا كسر جاري خلاف كي جوكتي وحير عادي وليه كي كدب وحيد ولا بدر على هاي قالت على الله يعني قالت لي قالت عن الله لا شخصت يرجين هذا أساسته مجال واقع وحكي خبط سيدا كلوا أساسي أو وده قالت نمن جبت نمن جب هذا أو اسكول جرجرتين حيل لكن هذا يكون قان هذا أخونا جرا أو جور هذا هستجان والله بنو أكتف أو كوكينا يري استشخصت صدق دين labadii qof ee waqtigaasi la shaqeynayay Maxamed Xaaji hadda galad waxa uu ka baxay al-shabaab halka Mooryaankana la baadigoobayo ay sheegeen booliska gobolka Banaadir inay hayaan macluumaad ku filan in la soo qabto oo ay ka mid tahay sawirkiisa Maxamed Xaaji waxa uu ka bilaabay Muqdisho hawlihiisii dilalka dhagarta waxa uu Muqdisho ku dilay dad badan oo haldoor u ahaa bulshadan kuwaasoo isugu jiray saraakiil shaqaale dawladeed iyo dad kale oo bulshada waxgal u ahaa dadka haldoorka uu ku dilay Muqdisho waxa ka mid ahaa
jenaraal cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux oo ahaa sargaal ciidan oo waxtar u lahaa dalkan waxa uuna jananka ku dilay masjid ku yaalla Waaberi isagoo ka soo baxay salaadii cishaa maadaama uu sheegay in maqribkii uu ku adkaaday dilku sababo la xiriira ciidamada ammaanka oo ka dhawaa aaga generaalkan meesha soo fadhiisanahay maqribkii cishaa wuxuu ku tukanaa marka maqribka ma la dili karo oo degmadu u dhow yahay degmadana ciyaalkan dhacadka joogo aagaas isha madow waata marka waa cisho marka niyo dhowr mar isku daynay waxa la isku heshiiyay hadii ninka bubuk la maqlo degmadu u dhowdahay isgoosada day xiraan inta laga baxa ragina la lugayaan hal luuq waxa jir marka mar walba luuqa xeelada la lahaado oo lagu baxsada jir oo la calada wadooyinka la xirxiro oo bajaajta la barbaaray dhalinyarada iyaga waxooda wataan meesha la soo maray dilka jenaraal quruurux waxa uu ka mid ahaa dhagarii ugu xuslaa uu sameeyey maxamed xaaji ilka case waxa uuna ka hor dilkaasi diyaarsaday 2 koox oo bamgacmeedyo ku kala tuura xarunta degmada Waaberi iyo bar ciidan oo ka dhaweyd meesha si uusan gurmad ugu imaan inta dhagarta dilka ay socoto kuwaas oo markii uu isagu taleefanada ka baaqay tuuray bamgacmeedyada kadibna uu isagu fushaday hawshii u socday oo ahayd dilka jananka masaajidka cisho ku tugtaa marka qorshaha waxa la keenay waa la fariistay shir anaga waxaan dhahay shir hoosh adan keenay taala soo qabsan la adan keenay taala muqdisho idin ka dhex joogay waxaan wixii hub iyo fan loo baahday diyaar waa laakiin hoosh idin ka wada generaalka marka hoosh anay ugu soo shubatay in yiraahdo muqdisho oo kala yaqaan bidbid ani Salmaan ugu soo shubatay Salmaan tala wuxuu yiri niyo jeneraal korta hal mal ugu aadi karo laba mal ugu aadi karo saddex lagu aada ila laba wata marka staafka laba way halna isaga way nin walba shaqadiisa qabsada nin walba hal uu ku aada marka aan waxaan ku fikiray degmada u dhow waxaan nahay markan iyo macquul ma degmada hal dhagax lagu qabto oo mashquulin ah hatta albaabka isaga dhufta say barto intay difaac ku galan xabada ay u tooraan isku qasanto ugaaska wuxuu soo jeediyay degmada hadii lagu dhafanayo kuwa kale oo bundadana gaaray meesha u yaalo jukka dhacday soo dhaqaajinayaan ayagana ku dhafana marka warkii la isku raacay talada raafiyay dhagaxyadii la keenay oo la soo diyaar garoobay saddex marka loo soo diyaar garoobay ugaaska caawba hal loo keensaday hal qof loo keensaday maxalli jiray jananka hal staff wata bas sayidka isku tugtay markii cishaha oo laga bixin rabo waa u baaqayna dhalinyarada marka u baaqno baaq aan ku wada dhufan labada dhalinyaro in jugta ay dhacdo kadibna xabada lagu xijiyo saas ay ahayd si xabada dhan ay u dhumaanba ila jug marka xabada la wada yeerna waqti ciidanka yaa tuuray meeshina ku dhaxqarsantaa la rabay kadib sidii jugtii dhacday oo ku qaban ogaaska iskool daan soo siiyay الله naxariistay jenaraal maxamuud xaaji cali oo kamid ahaa saraakiisha ciidamada ayaa kamid ahaa dadkii uu dilay maxamed xaaji waxaana uu ku dilay degmada Boondheere xilli uu jananku hor fadhiyay gurigiisa waxa soo gudbiyay wiil mootola soo gudbiyay oo dhahay in janana meeshan joogo markaan tagay oo aan shaqada soo fiirsaday dhahayniyo soo fiir dhalinyarada xagga gudeen Boondheere meesha ugu xarunta badan waa dawladda maxaa la jiray soo fiiri shaqada markaan tagay oo maxaltoole aan soo fiiriyay meesha way adag tahay aad iyo adkaatay waxaanay ninkan general oo okay maxaa anaka banaag iska fadhiy horkan general ma ana dhahnay oo ku qaldamaysid hore waxa ma ogidee magaciisa sheegayna xataa shaqaas qaado hornaka janam ma anaka sarkaal waa dhici karto ninkan jan wala ku soo fadhiisanay hal wiil la fadhiisana ma jiraan meesha wax ma baro cunin buuligeeda taas oo kalsoonidaas isku qabaa bas okay waay marka galab aan rabnay galab waan soo rigalweysi subax guriga loo dhisaya subax ani iyo shoori iyo waxa imaanay iyo ugaas shaqada ilaan shaqa janna ma ilmo yareer ma kaysan kartid waa kaaga dhaawacmi karaan ka dhiman karaan ragii waaweynaad in xaniyooda fuulaama markaan meesha imaanay jananka isaga ah jananka waa fadhiya subax waa haddii ani iyo ugaasan xiranay shooriina waa xiran tahay shoori nooha xag u taalo noohadan ka qaadanaa aan ku yiri ma nooha ma la bixi karo siina deena xirtaan isgooska baxbada dhacamay waa la bixi karaan ku yiri waa jafayna deena la dhaafan oo tuureenaan dhahay bas go'aan ku qaadanay noohadan qaadanay haddaan aadnaba waxa arkoyaa guduhu galay
dhagaxad xagga agmarna guriga kale ninka shuuriye kor naga daawana waxa dhahay ninka guriga waa ugu gashan guriga wax ku jir ma naqaan oo kaadaan waxa soo baxay janankii oo janankiisa wata oo dharkii militariga wata ima aqaaniye waxa digaha ugu toban iskoolo biljam fiican wata imid kale staff ul wata yani qor wata haka wata asla soo baxay horana ma soo baxin inaan socda ninka weyn iska ilaali bas qomo wata bas noo haday galeen anagoo aan filaynin fak inta inagu soo dhax bixin ma taabanaba marka anaga asfiirin waa isdhaafnaa yani hoosh sidaan ku soo baxay si ka duwanayno naqad ninka aan meesha noo fadhiin caadi iska hadda bas qoolo soo qaatay isaga halisteeda leedahay marka dib aan u dhigna maalinka labaad maalinka labaad isla sidii soo banaanka fadhiya bug aan siinay noo hada laptop saarna laptopkan soo dafay soo array koofiyan aan kool galay marwalba aan wala yaqaanay koofiyan kool galay soo array xeer ilaaliye xigeenka qaranka maxamed cabdiraxmaan oo gurigiisa ka baxay una socday hawshiisa oo khidmaynta shacabka ayay ku dileen waddo ka soo baxda gurigiisa iyagoo kadibna ku baxsaday gaarigiisa balse iska dhigay gaarigaasi markii jidadka oo dhan laga xiray wuxuuna sheegay in xeer ilaaliyaha ay ogaadeen xilkiisa markii ay dileen kadib isaga ayaana gacantiisa ku dilay maxamed xaaji xeer ilaaliyaha bajaajka aan ka soo deganay gaari ka wastaanay كاي واسو نك لبي كسارين نك كلا الى انا بجناين كما ادا جيل سو دبسان ادا جيل نك كلا الى انا فرنا صاحبه ومشغول اني نك هادو او تابتو ومشغول سي مكتب مسكاي سدن عيسى دل ولا قاعد كرر كسي نك كلا انه marka ninka ilaaliyo wax dilay inuu ilaaliyo asal laga rabaa soo waa kana ay xaja gil ana galay ana galay ninka gaar dameer meesha soo dhaxgalay أبنو هكذا بقى استاجيب سمياب دش هذا عي كان كلا تقول هاي بقى قبتي صدق أنا جارك صدق صدق أنت صدقتي ومنطقي وفنيستك عيو اسكت درس من سوى عبين مركا وجاز عقد لك جد ولا مرة مكت تين الضوء على أسكار الله عنك وإحنا ملوهين عن ملاء قوسن كدب وحمقلنا قدرنا كما قدونا نك أو ده يور هبلا ننا تلفون كود له نجي سنة أنا قوم بشيس كمرين دبك ورنك يستجع هنك كلا ولا صارناية سلوا لا فمرك نك كلا ورنك كلا ما أخوزنا الله دي ما كفاية مدونا نك حتى إنه وحاها فلولا أنا أوغاني وديك لنا نفتر كيس سجى دي ما أوغان دونا نك جاري لا صارنا إنه شقده وحكلها يعني حرر عليه محكمة ونفتر كشغينا أوغاني فاكتور لكن لما هو sidoo kale dilka taliyihiisa liga wardhiigle ayuu wax ku ogaa inkastoo uusan isagu ka mid ahayn kooxda waxdishay wuxuuse ku doodayaa in kooxda waxdishay u dejiyeen xeelad ay ku qiyaameeyaan taliyaha kuna dilaan in ragga meesha uu ninkan ugaas yar kale saalax uu meesha mooto ku barbaray mooto barbarad laga dhigay dabada talo mara hubkii uu soo dahay dib u imaan ay qaateen fakta موت أواس مش حكوا بربرة صالح وحكوا عن الموت مش حكوا بربرة عبارة مش جوجا رجعت ما تكوت ولا معك سانس عمران سليم مش جوجا دوالي إيش سان كسوهن ليه sometimes نوع أركيس خوفك أنا عنا حتى ما نقام maxamed xaaji waxa uu sidoo kale sheegtay inuu wax ka ogaa dilkii aamina oo ahayd baare ka tirsanayd nisa waxayna ahayd qofkii gacanta ku hayay kiiskiisa markan ka horeysay la soo xiray maxamed xaaji aamina meel aan ku arki lahaa ana ma dhaafeen dadka qowl number 1 ka ah xataa ana ogta taas waqti fahma aamina rag fara badan horta xaniya qabato oo markii meesha joogtay wax badan ay haleysay waxa kamid ah yar la xukumay oo la dhahay maxamed mare طبعا محمد marka milyan qof baar oo soo naqato in hal uu fiirinayo aamina waxay u tin ku ahayd al-shabaab waxayna dhamaantood u arkayeen qof khatar ku ah maleeshiyaadkooda la xiro isla markaana aan marna gorgortan ka galin shaqada ay qaranka u haysay waxayna sidoo kale caqabad u arkayeen inay aamina waqti dheer joogto baarista iyagoo arkayeen qof marka la soo xiro ay haddana sanad kadib markii la soo xiro isla iyadii joogto ay aqoonsan karto qofkaasi
maxamed xaaji ilka xase waxa uu sheegay in kooxda aamino dishay uu isagu geeyo goobta ayna hagaysay qof dumar oo is yaqaaneen mid ka mid ah dilayaasha waxaana dilkaasi fuliyey sida uu sheegay ugaaska oo ah qofka aad sawirkiisa aragtaan oo la baadi goobayo iyo cabdulaahi kuusane oo isagana sawirkiisa aad aragtaan oo la baadi goobayo iyadoo hubka wax lagu dilayna ay watay maryan oo ahaa cabdulaahi kuusane hooyadiis isla markaana xaaska uu qaba salmaan oo ka mid ah shabakadan la hayo kiiska aamino wuxuu u dhacay saan u sheegay hal shay baan ku darin waa xaqiiq in la soo xeeyay oo la dhaciyaalka wad geemish maalin cad wax ku cuni kartid in aniga ugaas iyo gruubkiisa aan waday oo aan dhex geemish aan banaanka kista dhaawasho soo qabta gudahan ku jira kuusane oo kuusane markaasna uu hooyadiisa wacay naaga oo sheegaysa arinta waxaana shaki iga jirin aamina qofka kalaaska la fadhiyo inuu gudbiyo hadalkan xataa banaanka joogan ku dhahayna aragtida markaa ka hesha fasalka la fadhiinaagta waanday waxaana say qiyaasayaa qofka fasalka la fadhiyo inuu soo kacay soo istaagay oo banaanka uu soo baxay oo kuusana la hadlay kadibna ku laabtay yacni tilmaanta uu bixinay kadibna hawsha saasay u dhacday dumar u ah kuusana la soo hadashay kadibna soo laabatay kadibna kuwaas ay saddexda mar soo galeen kuusana wuxuu ka istaagay albaabki labadan hawsha gashay yani laba ku gashay uu saddex ku socday dadkaas intii wax fahmaa tan kala taagna dadka markii ordada samee ordan kuusana oo fiirsanay halkan waa jaamacadda Soomaaliya kanina waa fasalkii ay dhiganaysay aamina lagu dhex dilay waxayna maamulka jaamacadda ii sheegeen in fasalkaasi wax lagu barto ay ugu dambeysay maalinkii lagu dhex dilay aamino kadib markii ay diideen ardaydii kale ee jaamacadda inay wax ku dhigtaan fasal lagu dhex dilay mid ka mid ah ardaydooda ardayad aamina waxay ahayd qof ku firfircoon waxbarashada leena hami fog waxayna dhiganaysay kuliyadda shareecada iyadoona jaamacadda Soomaaliya ay ila wadaageen natiijooyinka imtixaanaadkii ay gashay ka hor intii aan la dilin maxamed xaaji ilka xase waxa uu aaminsan yahay in dadaalada ciidamada ammaanka iyo baraha koontarool ee la badiyey ay dhabarjab ku noqdeen kooxda waxayna taasi meesha ka saartay kooxdii wadan jirtay gaadiidka lagu horjaro gaadiidka kale ee kadibna saas lagu dilo qofka gaariga wata isagoo sheegay in hawlgallada noocaasa ay gabi ahaanba kooxdu joojisay sariirka waa balaartay sariirka yani waa baabay hadaa dheh fashalkii suceeb iyo waxaas ku dhacay fashalo fara badan kadib iyo goobaha oo ciidanka jaakibantiyadooda la badiyay in waxay jirtay marba di ex control aan gaarin xaniyaan lahayn waqti hadee ex control dhaafsatay xataa galmudugna wuxuu ku sameeyo ma sahlan hadda istaraatiijiyadda amni ay dejiyeen saraakiisha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxay ku qasabtay al-shabaab inay yaraadaan falalkooda argagixiso waxaana meel kasta la dhigay dhalinyaro boolis u heegana ilaalinta amniga shacabka kuwaasoo ku qasbay maleeshiyada al-shabaab inay isaga firxadaan magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya waxay samaysay wax kastoo ay ku xaqiijinayso ammaanka muwaadiniinta waxayna meesha ka saartay falalkii argagixisanimo ee gaadiidka lagu horjeeray gaadiidka sida al-shabaab laftigooda qirayaan waxayna ka dalbanayaan shacabka inay ka gacan siiyaan ammaanka wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa sharaxaya guulaha arrimahaas ay ka gaareen ciidamada dowladda Soomaaliya sida aad ogtahay waxa ay sameyn jireen waayadii hore markii ay ficil xun inay geystaan ay ka cararaan laakiin waayadan dambe laamaha ammaanka waxa ay la soo baxeen la falgalkii ugu adkaa cid allaale cidii wax geysatana gacanta lagu qabtaa cid allaale cidii wax isku dayi doontana waxaan u sheegayaa inaysan ka badbaadeynin laamaha ammaanka haddii ay falka ay geystaanna aysan ka baxsan doonin maxamed xaaji ilka xase isagoo macallin jaamacadeeda ayuu ku dhiiraday inuu magaalada wax ku dhex dilo wuxuuna ku doodayaa inayba dadka dhan maqan yihiin oo aysan aqoonsan marka uu wax dilayo waa iska jirtaa mucjiso aan saxawood marka wax dilis dadka ku arkayaan meesha wax ku dishay maalin kala daymaad caadi qalbiga wax markana waa la kala yaacay oo aqaanani isla maalinka birmaanka meesha imaan shaqo cabeen dadka ka shaqeynaa
dilka dadka keliya kuma ekayn maxamed waxaa u sii dheeraa inuu ahaa tababare ku xarbiya dhallinyarada falalka argagixisanimo ee dilalka shacabka ay ka mid yihiin wuxuuna ka dhigtay wax ciyaar inuu dadka dilo isagoo soo kaxayn jiray dhallinyaro uu ku biiriya al-shabaab kadibna si toosa u tusi jiray isagoo wax dilaya si ay ugu daydaan isagoona ku oran jiray waan idiin dhigayaa ee dhammaystira taasoo ula jeedo inuu qofka u dhaawacayo iyaguna dhammaystirayaan marka dhahan ayaantan wadan iyo inoo laba wiil oo cusub la soo wadaa aad u fiican oo ladan soo jikmay bal shaqo ma bari kartaan wadaas wiil hada qof darwala u sameeyo shaqo ma bari kartaan ha aan loo keenaa marka dadka marka dad tabar ahaan dhameystiran laakiin baraatikada ma leh fiyor ahaan way dhameystiran waa la baraa marka shaqada kama keysana mas waladan keena anaga wadan shaqada haye waladan baraa okay ana garaada iyo wixii oo ku dhigan ko dhameystiran meesha ka dhaha furo كنترول كحل حاجة استاجيس هذا واقع سأقول هاي بس والله بلا وينك ما أنا كلامات خف كلامك كنا ما أنا استعد مرك أكتب أنا مسكون في لنتي مرك الله مرك الله فتاتم مرك ما يعن كل شغلنا رجع أنا عبد الله من كل شغلنا مين يغنى لك dadka uu tababarka noocaas siiyay waxa kamid ah wiilkan oo lagu magacaabo Shucayb kaas oo hortiisa dilal ku sameeyay marka waxa imaadinay hoow in la baxaa la rabaa oo maxaa la jiro dooro la aado waxaan dhahay ana markii ilaa hadda ana in lambar leen kala marayna koodhe waxaan dhahay lambar iyo macluumaadaan kala marayna ani ziyaado kale soo gelinaan dhahay mar hadaan ka baxo inuu dadka ayagu macnaha horta waxay ku leeyihiin meeshaas aadade tahriiba aadade inta ka baxaade wax saas amal sheeg laakiin anna waan dareensanahay adina waxaan isleeyahay maxaa la jirinayo qof waa warkaaga waa la fahmi doonaa مش سيستم واقع قلدمي دونا وارد حقي ساعات ومش سكه لها نقطه waxaa la inaan soo baxdo maxaa la jiraa meeshaas imaadada oo 10 qaadada muhiim ah aanayno aan xamarka ma bixi karo habeenka ma bixi karo maalinka ma bixi karo xamar dhaxdiisa waxaan arag meeshaas dadka maxaa la isku sheegaa wadnaan lahayn meesha kama soo qaaday wax kale meeshaas hadda maan ziyaadeen shaqada qabashadeeda leemahano qabashadeeda marka waxa marka isku fahanay tababar iyo waxaas iyo in wax lagu soo fahansiyo 10 oo wax fahansiin wax kale ma baahnaan ahniyo ma fahanti ana hadda maanta 10 ay akhrisida wax ay ga dhaadhicisay ani hadda uma baahnaan marka hadii ay si kale ay jirto ana safar ma soo aadi karo xumaana aysan naga noqonayna mis wuxuu dhahay marka kulay waa isku noqdeen kulay ragaas waxa waa rag imtixaan waa isku laabteen marka waxa la horta ninka waa laga wareysana barnaamijyada ayaga isla wada hadlayaan saan jeclahay aan ogeyn laakiin se ugu dambeyn markay soo wada fahmeen waxay soo go'aansadeen waxaan dhihi jiray in ay shayba noqoto gartaas ay macnaha macquul ay noqoto uu soo celiyay wuxuu dhahay maxaa la dhihi jiray shaqada iyo qaabkeeda iyo nooc loo qabanayo iyo wax dhan waa lagu fahansiiyaa fahansiina ninkaas macnaha maxaa la dhihi jiray oo saaxiibka raacaysa soo maraatig ahaan u fahmay carabiya koox la socota oo hogaaminaya maxamed xaajiilka xase waxay isku dayeen inay dilaan hooyo ilmo ku korsanaysay ka ganacsiga jaadka agaarka siliga Ameerikaanka halkaas oo ay markii ay kor tageen hooyadaasi ay dhammaantood u dhixi waayeen bastooladihii ay wateen waa kuwan kooxdii bastooladu u dhixi waayeen oo mid noogu sharaxaya wixii maalinkaas ku dhaxay horta intaan aqaano horta waxayna hayeen ilkaas carab axmed iyo aniga Yaxya oo laakiin way Ismaaciil saxda markii oo islaantan inta la aadan ka hor Axmed ayaan isku xiray ilkaas wuxuu dhahay waxa la shaqeynaysaa ninkan kula shaqeynayo wuxuu dhahay meeshaas naagtaas oo irgada wax soo dooratay iyo waa liisha nolosha sharaxay irgada soo dooratay islaantaas ayaan ina aadina rabnaa waayahay yaade Axmed ayaa kula jiro dhahay Axmed iyo aniga waa soo aadni marka hore ilkaas ayaa ibar islaanta jaada yagada irgada soo doorato ii sheeg Axmed isna wuu bar laakiin aniga markii dibeysa Axmed ayaa israacini waa soo waaneen waa iimaaneen marna way maqnid ida maqnid oo la way baaqati marna marka aadna oo ida inta markii la helo kadib waa la waanay maalinka dibeysiin oo ugu dambeysii waa la helay habeenay ahayd maqrab markii la soo dugtay kadib meeshii marka tagnay oo irtijaadki kadibna meeshii ayaan howlgalkii in la furiyo la rabi howlgalkii istulooyinkii iyo wixii aan ka tibin
markii kadib anaga waa kasoo tagnay waa kasoo cararnay meeshii xoogaa yar buuq yar ka meeshii waa kasoo kala cararnay kadibna anagoo cararayna ayaa ciidamada dowladda dhexda u galnay horta muddo waan kasoo qaaday waxaan keenay cabirka siliga tala gaarin bacaada ahayd meesha ku deji iga degan adig 10 daqiiqo ma soo wareegan asoo qaylahay soo baxay ilkaasa miyo waa baasha ka halawday inuu ka gaaro hada meesha ka tagan dad ha qaadan koorsa daasho shaqo qaadan haybayaan ay mana diidi kartid waa soo qaaday asoo kontaroolkan ku soo dhacay marka kontaroolka oo askarta nasteexo ku soo dhacay niyo aan horta systemka qabasho ahaan marka aan ku sheego oo haddii meel kasta la aado mise meel kasta la soo maro horta wax aan karsamaynin waxay ahayd anagoo shaqadaas naga soo baaqatay kidibkaas u imaaday ay tahay meeshan cakaara taqaana ay tahay ya meeshan lagu qaban doonana ay kullee ay tahay madiina salkeeda ay tahay oo san wixii oo qabashadeena iyo intaasna aysan u dhaxaynin wax aan 10 daqiiqo dhameen hataa haddii aan fiirino 3 daqiiqo camal soo cararayna oo orod fiican ah marka meesha imaana bajaajka 7 daqiiqana ma aanan saarnayn si aan hadda aan qiyaasay markii been banaanka laga tago mujeeda marka umuum isku dar intaas ay baash hooyada ay rabeen inay dilaan kooxdan oo lagu magacaabo Baarliin ayaa isaga xarartay dalka iyadoo ka tagtay carruurtii ay u xamaalanaysay kadib markii ay u baqday nafteeda waxayna iyadoo joogto Turkiga la wadaagtay barnaamijka Gungaar muuqaal kooban oo uga hadlayso wixii ku dhacay maalinkaasi iyo hadda sida xaalkeedu yahay goor saacada ay tahay halka saac oo habeenimo ayaa ragay imaadan hubaysan alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ka noolahay halka madaxaabay xabadiiga qabteen bistoolada dib baan iga sheegi doonaa makaaruf halkaas iga qabteen xabadii makaarufka bistooladii makaarufkeeda way dhici weysay wuu ila soo wareegay intuu iga qabtay xukunka ilaahay way dhici weysay bacdeen ninkii labaad markuu ninkii koowaad 2 xabadood u qabtay ninkii labaad uu soo wareegay kii kala imaaday oo labaad halka uu iga qabtay kilida ah bistooladaas waxa la yaateetay xabadii way dhici weysay qadarta rabbi uu liga soo wareegay halka laabta uu iga qabtay weysay sayaniga ay waan maxayr shay ragina ilaamaha abniga ay gacanta u galeen markaas ba control ku dhacay aniga markay meeshaas qado korontada iga maqneed ka bacdiya gacanta meeshii laga qabtay markay gacanta meeshii laga qabtay kulli cadkayga dambeeyay targad waxa laga dhignayna ma aqaano marka hadda aan cid targad ka dhigaynin sharciga islaamka kama weynin hooyo Soomaaliyeed oo konton habeen umul ah ayaan ahaa ciyaalkayga meel kuma sheega hadda waxaan biilayay oo markaas aan qof u baxay oo beel iga sugayay hooyaday waayeel ah walaalahay sabool waxa bahaysanin ciyaalkayga yaryariska oo midka uu yar oo markaas umusha aan kula jiray konton habeen ayaan umul ahaa intaas baan idin sheegayaa sharciga islaamka kama weyni dhagarta iyo dilka dadka waxa soo diyaariya koox ay u yaqaanaan istikhbaaraad waxaana kooxdaasi xukuma ninkan oo lagu magacaabo Salmaan kaasoo diiday inuu la hadlo barnaamijka Gungaar balse Salmaan ugu dambeyntii waxa uu qiraal ka hor sameeyay fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya halkaas oo uu ka sheegay doorkiisa al-shabaabnimo aniga waa kamid ah laakiin taqyiid ahaan kama mid ahayn qasab awgiisa aan ururkan ugu biray aniga saaxiib aan nahay maxamed xaaji liiraada ay ugu qasbay inaan ku biiro shabaab asagaana barnaamijkaas la waday waxaan u aabasna oo kaliya lacagaas oo kaliya koonkii bisay isticmaali jireen wax hadda shaqo aan qabtin ma jirto Hashim waxa uu ka mid yahay shabakada Maxamed Xaaji la shaqeynayay waxa uu qaabilsanaa hagida iyo saaminta goobaha ay dilalka ka dhacayaan waxaana uu ahaa hagii ugu kalsoonida badnaa Xaaji waliba asaga ayaa ku tashkiiliyay inuu ka mid noqdo kooxda al-shabaab marka
ninkaasna saaxiibkaa waa taqaanaa horena waa u taqaanay ururkaas inuu ka tirsanaa anaasan saaxiib aan nahay marka hadda ururkaas waaba ka tirsanaa waa la shaqeeyaa marka adigana waxaan jeclaan lahaa inkastoo saaxiibkayga aad tahay inaan arrintaas aan kugu tashkiiliyo oo adiga go-aan ka gaartid isla markii aniga go-aan degdeg ma gaarin waxaan dhahay kuley aniga hadda nin iska shaqaystaan xaasna waa qabaa markaas waxaan ka shaqeeyaa footidii aan ka shaqeeyaa marka waxaan dhahay hoowana waa laga fiican wax hadda aniga arrin qidci askari iyo xaas iyo mana aqaano haddana kuma degdegi karo kuley nin xaas qoon waa kuley dhib ma loo dhahay laakiin qaabka u malaysa ma qaab kale nooc kale loo shaqeeyaa jirto oo adoo hooshaada wato ciddaadan aysan ku ogaanaynin oo iska fiican ayaa jirto magaalkaana joogo marka qaabkaas aan kuu sheegaa hadday ku qanciso kaas kuley anaa horta waa kasoo fikiraa si wax u jira ii sheeg marka qaabkuu ii sheegay qaabka amnigu ii sheegay magaalka qaabka looga shaqeynayo hoolasho la qabanayo qaab loo qabanayo waxyaalahaasuu ii sheegay marka faadumo oo magaceeda afgarashada yahay korneylad faadumo ama cosaba waxay u qaabilsanayd shabakadan inay u soo shirqoosho dadka ay rabaan inay dilaan waxayna ballamin jirtay nimanka si kor looga arko iyadoona ka mid ahayd madaniga xamar jajab iyo ururka hooyooyinka qaranka jilcanta iska dhaaf aniga qarax ma ku dhiibanaan hubkan ii qaad ii hay ma ku dhahay degmadaas waxaan ka rabaa wixii ka dhacayo in xilliga xalfadda ay qabtiin xilliga madaxdeedii imaanayso xilliga ay degmada soo galayaan xilliga ay ka tagayaan sida badan madaxa idii timaado inaa ii soo sheegtid oo maxaan ku ilaa saas oo shaqada ay ila wadadaan rabaa waxaas la ii soo sheeg bis aniga wax kale ay qaban faadumo waxay diri jirtay sawirada dadka ay al-shabaab doonayaan iyadoona qaarkood shukaansi ahaan ula macaamili jirtay markuu ii soo dhigay sawiradii madaniga saasaan ugu dhigay madaniga marka saas ugu dhigay marka waxaa jiray wiil oo madani oo ka gooni ahay sawirkaas oo mootoolo ahay ayaa jiray asna waa u dhigay asiga mootadiisaan u dhigay taargadiisaan u dhigay kaas mayna arkin weli ma arkin waa la joogay ayadoo marka sidii laisku moogyahay haddana waxuu ii soo diray wiilkan oo taliya qaybka ahaa faadumo waxa ay cashirqool u diyaarisay nin iyada ay kala tageen kaasoo ay u sheegtay inay uuru leedahay taasoo aan waxba ka jirin kadibna markii ay ballamisay waxay kor ka tusay koox ka tirsan al-shabaab si ay u aqoonsadaan marka ay dilayaan soo wacay asiga wuxuu dhahay hadaad uur leedahay inay buluhu saxyiin in kale isbitaal ku geynaa ani marka hadalkaas waan ka xanaaqay waxaan dhahay inay buluhu saxyiin in kale isbitaal ku geynaa aflagaadan warkaan dhahay marka wuxuu yiri ima maalo ima wiri xaar ma ku imaanayni waa ka xanaaqay maalinkaas xaar ku imaanayni marka habeenkii uu soo wacay wuxuu dhahay walaalay waa kugu la kaftamahay hadalkaas iska dhaaf iyo wixii oo dambiyoon kalne waxaan ku iraahdaa iska kiyafi xaaladan inay meesheeda ka sii socota rajaynayna oo reerka aan ka doono oo maxaan ku raxmatadan ku geystan aan ka tirtiro marka imo sawiradiisana markaas waa la soo diro taleefankii ku jirin markuu isoo wacay amiirka u sheegay xaalisaas ay jirto wiilkaas maanta aadir waan socday xafadiis socodaan hay waa arkayna wareejiro garoob ku ballan waa arkayna isoo doonan lahay waa isoo doonay ayagana sidii ay kor uga arkeen xaafadda aan soo sheekaysan waxaan dhawraal warkii hore la wadahay kala daayana waa ka soo laabtay gurigaan u soo laabtay nimankaana way arkeen waxyaabaha cajiibka aan ku ogaaday faadumo waxaa ka mid ahayd inay aaminsan tahay khuraafaad iyadoona sidatay warqadan oo ay ku sheegtay inay ka xijaabayso dowladda inay ogaato howlaha ay waddo taasoo sida muuqata ah sixir iyo wax la halmaala
haashim oo ka mid ah qaybta sahanka ee kooxda al-shabaab mar hadda ka hor la xiray maxamed xaaji waxa uu ahaa shakhsigii u dhexeeyey maxamed aabihiis iyo kooxda al-shabaab wuxuuna sheegay inuu mar kasta la xiriiri jiray aabba xaaji una sheegi jiray in wax kasta oo dhaqaalaha u baahdo ay ka caawin doonaan si loo soo daayo xaaji. aabihiis waxaan dhihi jiray xaalad intay maray meel bis waxaan u sheegi jiray inay ardaydii ama dhalinyartii ururka boolmareer dhalinyarta inay wax walba ay garab taagan haddii loo baado qarash haddii loo baado wax walba ana u sheegayna wiilkiisa meeshii lacag haddii looga baado laga helayo iyo dadka caawinayo aan qarinayo intaasaan u sheegi jiray laakiin lacagaan isku dayi jiray inaan odayga haddii loo baahdo in la soo dhiibo oo lacag lagu furdaaminayo bisnidiisa. laakiin aabbaha dhalay maxamed xaaji oo aan la kulmay waxa uu diiday in ninkan ay wax wada hadal ah galeen isaguna uu iskiis ugu dadaalay sii daynta wiilkiisa. wiilka hadda kahor waa iska jirtay ilmaha la xiray yani wiil raaf uu galay raaf waa iska jiray marka raaf waa la galaa xermo oo raaf waa la galaa sida caadiga ah raafta waxaa uu gal la yidhaahdo lagu soo qabto iyo wax oo macnaha dhacdo fal of sameeyey ama oo dad sameeyey lagu tumaa ogayaal la geyn la duubaayo iyo waxaa jiro howlgal guud oo la socdo howlgal guud lagu socdo meelahaasaa lagu xiray marka dam guud maanaha waxna waa lagu baay waxaan leeyahay haddii dambi leeyahin hala xukumo haddii dambi leeyahanna يعني ألسي طيب سير ألسي ما جبت عندك حاجة سمكة سيدتي maxamed xaaji waxa uu qabaa in horjoogayaashooda aysan ogolayn carruurtoodu inay galaan dhibka iyagu ku jiraan taasna ay tahay tuun ay qabaan balse aysan kor u sheegi karin sababo la xiriira xabsi ay qabaan. isweydiina ilmahoodii aaw ilmahoodii waa laga dheereeyaa maxaa yeelay ayagaa lagu korraadina maraykana canuga ninka ku korraadin karo nacsu way fikiraan xaqiiqda laakiin saas maahan xaqiiqda waxaa nin walba canugiisa waa ku kulaanayo tusaale ahaan cali jabal ciyaarkiisa dhan way u kala maqan yihiin marka laga rabo wiilkiisa lala duqeynayo. al-shabaab waxay maxamed xaaji ilka xase ku dareen haweenay u ka dhintay ninkii isku qarxiyay hotel ambashador oo lagu magacaabo qaali cabdirasaaq taasoo hooyadeedna ay ku jirto xabsiga dhexe loona xukumay al-shabaabnimo iyo hubhayn. qaybtii koowaad ee barnaamijkeenna gungaar waa naga intaa qaybta labaad oo aan uga hadlayno siday wax u dhagraan kooxda al-shabaab kala soco habeen dambe isla 8 fiidnimo telefishinka qaranka.